dowladda waddanka Ruushka ayaa qabanqaabinaysa inay soo bandhigto dhoolatus military kaas oo noqonaya kan sanadkan dunida ka yaabiyay isla markaana ah kan sanadkan ugu weyn ee ka dhaca intiisii kale. wararka ka imaanaya waddanka Ruushka ayaa sheegaya in xukuumadda uu hogaamiyo Vladimir Putin ay qorsheynayso qabashada dhoolatus military oo ballaaran kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidan gaaraya 300,000 oo askari. dhoolatuskaas oo lagu macneeyay kii ugu weynaa ee dunida ka dhaca wixii ka dambeeyay sanadkii 1981. dhoolatuskan ayaa lagu magac daray Vostok 2018 waxaana lagu soo waramayaa suurtagalnimada inay ka qayb qaadan doonaan laba ciidan oo kale oo ka kala socda dowladaha Mongolia iyo Shiinaha oo kamid ah wadamada dhaca bariga qaaradda Aasiya xuduud dheerna la wadaaga waddanka Ruushka. afayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa shaaciyay in dhoolatuska Vostok 2018 uu yahay mid xor ah uusan ahayn mid dhaqdhaqaaq u siinaya siyaasadaha cudwaaniga ah ee aan la jeclaysan ee ka dhanah dowladda Ruushka. waxa uu ku soo aadayaa xilli uu sare u sii kacayo isfahmi waaga u dhaxeeya urur gaaleedka NATO ee Mareykanka uu horboodayo iyo dowladda Ruushka iyo xulafadeeda. wasiirka difaaca Ruushka oo isna ka hadlay qabanqaabada mashruucan ayaa warbaahinta dalka Ruushka u sheegay in dhoolatuskan ay ka qayb qaadan doonaan 36,000 oo taangi, gaadiid gaashaaman oo kor u dhaafaya 80,000 oo gaari iyo wax ka badan 1,000 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka. qorshahana waxa uu yahay in dhoolatuskan la qabanayo 11 ilaa 15 bisha September ee nagu soo fool leh. wasiirku waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhammaan ciidanka dhulka, kuwa cirka iyo ciidanka badda Ruushka ay ka qayb qaadan doonaan dhoolatuskan, si gaar ahna ay ciidanka badda ka qayb qaadanayaan laba markab oo waaweyn oo ah kuwa diyaaradaha ximbaara oo ku sugan gobolka Siberia ee dhaca bariga fog ee dalka Ruushka. mas'uuliyiin ka tirsan urur gaaleedka NATO ayaa la mid dhigay dhoolatuska Vostok 2018 dhoolatuskii Zabat 81 ee uu sameeyay ururkii burburay ee Midowgii Soviet 1981 kaas oo ay qayb ka ahaayeen casharo lagu baranayay sidii loo weerari lahaa dowladaha ku midoobay ururka NATO, balse midka bisha soo socota la qabanayo uu ka xil dheer yahay kii 81. mas'uulka ayaa tilmaamay in sidoo kale ka qayb qaadashada dowladda Shiinaha ee dhoolatuskan uu yahay mid muujinaya iskaashiga dhan kasta ah ee ka dhaxeeya dowladaha Ruushka iyo Shiinaha oo labaduba khilaaf siyaasadeed u kala dhaxeeya dowladda Mareykanka. dowladda Ruushka ayaa sanadkii la soo dhaafay qabatay dhoolatus military oo kan ka xajmi yar waxaana ka qayb qaatay ciidamo ka kala socda Ruushka iyo dowladda Belarusiya. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa reer galbeedku ku eedeynayaan in shaqadiisa koobaad uu ka dhigay sidii uu u horumarin lahaa ciidanka Ruushka qaybihiisa kala duwan oo imika tiradooda lagu qiyaasayo 1 milyan oo askari. waqtiyadii dambana wuxuu shaqada ku soo daray sawaariikh nukliyeer ah oo cusub iyo diyaarado dheereeya oo ah kuwa ximbaari kara madaxyada nukliyeerka ee dowladda Ruushka ay diyaarisay. dhanka wasaaradda difaaca Shiinaha war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in iskaashiga ciidan ee labada dowladood u dhaxeeya uu sare u qaadayo awoodda military ee labada dhinac iyo sidii ay kaga hortagi lahaayeen tahdiidaadka amni ee dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ay kala kulmayaan dowladaha ku midoobay isbahaysiga NATO ee ay ku midaysan yihiin inta badan dowladaha reer Yurub iyo Mareykanka. inkastoo ay gadaal ka sheegtay in dhoolatuska Vostok 2018 uusan si toos ah u beegsanaynin garab saddexaad oo iyaga ka madax bannaana. wasaaradda ayaa shaacisay in ciidanka dowladda Shiinaha ka socda ee mashruucan qaybta ka ah ay gaarayaan 3,200 oo askari oo wata 900 oo kamid ah gaadiidka gaashaaman ee dagaalka oo isugu jira taangiyo iyo gawaari kale iyo 30 diyaaradood oo isugu jira miigag iyo helikobtaro. waxayna adkaysay in dhoolatuska lagu qaban doono fagaaraha tababarka ee Tasugol oo ku yaala mandiqada Transpykal oo dhacda bariga waddanka Ruushka. afayeenka guud ee isbahaysiga NATO ninka lagu magacaabo Dylan White ayaa dhankiisa ka dhawaajiyay in ururkooda lagu soo wargeliyay dhoolatuska military ee lagu qabanayo waddanka Ruushka, isbahaysigana uu si dhow ula socon doono dhaqdhaqaaqyada dowladaha Shiinaha, Ruushka iyo Mongolia. waxa uu yiri isbahaysiga NATO wuxuu ku fikirayaa sidii dowladda Ruushka looga dhaadhicin lahaa in goobta dhoolatuska loo diro saraakiil dhankiisa ka socda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada tababarka, isagoona sii raaciyay ogaanshahooda ku aadan in dowlad kasta ay xaq u leedahay qabashada dhoolatusyo military oo ciidankeeda ay ku tababaranayaan, balse ay laga maarmaan tahay in mashaariicda sidan u waaweyn laga dhigaa qaab qof kasta uu suuraysan karo oo aan qaraska xornimo lahayn. afayeenka ayaa sheegay in dhoolatuska Vostok ay ka qayb qaadanayaan ciidan ka badan 300,000 oo askari oo banaanka soo dhigayo sida dowladda Ruushka ay uga go'an tahay diyaar ahaansheeda dagaal qoto dheer. qaabka ay hadda wax u socdaan sansaanteeda ay u eg tahay wixii la soo maray xilligii uu soconayay dagaalkii qabooba ee dhex maray gaalada sanadihii 1947 ilaa 1991. khilaafka u dhaxeeya isbahaysiga NATO iyo dowladda Ruushka ayaa salka ku haya dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan tahay isballaarinta dowladda Ruushka ay ka sameysay jasiiradda Al-Qrim oo sanadkii 2014 ay xoog kula wareegtay jasiiradaas oo dhacda bariga waddanka Ukraine. isballaarintaas oo ururka NATO uu kaga jawaabay inuu ciidan dhankiisa ka socda uu ku faafiyay bariga qaaradda Yurub halkaas oo ay geeyeen ciidan gaaraya 4,000 oo askari, falkaas oo dowladda Ruushka ay ku tilmaantay in NATO aysan xaq u lahayn balse uu yahay daandaansi iyada ka dhan ah oo aan geed loogu soo gaban.
sidoo kale khilaafka ayaa salka ku haya jaasuus horey uga tirsanaa sirdoonka dowladda Ruushka oo u soo goostay dhanka dowladda Ingiriiska kaas oo bishii Maaj ee aanu soo dhaafnay lagu sumeeyay koonfurta dalka Ingiriiska xilli jaasuuska oo lagu magacaabo Scarabelli iyo gabadhiisa Julia oo ay ka cunteynayeen maqaayad halka ku taala falkaas oo dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ay ku eedeeyeen dowladda Ruushka uuna ka dhashay in dhinacyada is haya mid kasta uu dhankiisa ka ceyriyo diblomaasiyiin dhanka kale ka socda ilaa markii dambe diblomaasiyiinta la kala ceyriyay ay gaareen wax ka badan 150 diblomaasi balse dadka indha-indheeya arrimaha siyaasadda ayaa qaba in waxa ugu muhiimsan ee la isku fahmi la'yahay ay tahay sidii loo maamuli lahaa wadamada dhaca bariga dhexe oo markii hore maamulkooda ay la gaar ahayd dowladda Mareykanka laakiin waayadan dambe dowladda Ruushka ay bilowday inay ku dhex faafiso qorshayaasheeda mustaqbalka iyadoo la wada ogsoon yahay in Ruushka uu si toos ah u soo galay dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe sanadkii 2015 xilligaas oo ciidamo fara badan iyo diyaarado dagaalba uu ku soo daabulay gudaha wadanka Suuriya halkaas oo uu kula dagaalamayo kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad Ruushka ayaa isbahaysi xooggan ka sameystay mandiqada bariga dhexe waxa uu iskaashi xooggan la leeyahay dowladda Iran oo ah quwad aan la dhayalsan karin oo ka jirta mandiqada bariga dhexe iyo nidaamka Bashar al-Assad oo wajahaya mucaarado xooggan haddana waxa socda qorshe dowladda Ruushka ay heshiisyo kula saxiixanayso dowladda Turkiga oo isku dhacsan yihiin Mareykanka xubin muhiim ah ka ah isbahaysiga NATO ee Mareykanka uu horboodayo